السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Macalin Maxmuud casharkan waxaynu ku qaadanay 10kaas eray oo meesha noo saaran erayga koowaad waxaa loo aqriyaa log laba macno waa uu leeyahay haddii ficil ahaan loo isticmaalo waa diiwaan gelin to record something yani wax inaad diiwaan gelisid record bay isku macno noqonayaan for example I log my study hours every day waxaan diiwaan geliyaa ama record ka geliyaa inta saacad oo aan wax akhristo maalin walba log waxaa kaloo loo isticmaalaa geedka weyn ee la jaro kurtun baa la yiraahdaa uma malayn labada dhinac markii laga jaro ayaa waxaa la yiraahdaa geedkaas weyn ee qoryahana laga dhigto inta la falfaleeqo dabka lagu shubo markuu qawiyada jirana ma aragtay dabka inta lagu daro lagu kuleelsado ama lagu qandacsado isagana log waa la yiraahdaa yani waa geed weyn oo dhaxda labada dhinac ka jira okay kurtun camal ah haddii kale waxaa isticmaali kartaa diiwaan gelin erayga labaad launch waxaa waayo nasiino ama meel lagu nasto labadaba la dhihi karaa haddii ficil ahaan loo isticmaalo waxaa la dhihi karaa yani qofkii inuu nasto oo weliba nasiino oo lazy la uu galo haddii noun loo isticmaalana waa meel loogu talagalay in lagu nasto yes for example they launch by the pool all afternoon waxay ku nasanayeen poolka galabkii oo dhan the airport launch was full of travelers meesha lagu nasto ee airportka waxaa ka buuxday musaafiriin erayga saddexaad magnificent eraygan waa adjective waa sifo waa wax aad u qurux badan ama aad ku cajab gelinayo glorious waa dhihi kartaa splendid waa dhihi kartaa yes for example she wore a magnificent red dress waxay xirneyd saako guduud ah ama casaan ah aad u qurux badan mansion waa guri aad u weyn aad u qurux badan ama villa camal ayaa la yiraahdaa mansion the actor bought a big mansion atoray wuxuu gatay ama jilaagi wuxuu gatay yani guri villa ah oo aad u weyn erayga shanaad material waxaa la yiraahdaa wax yani waxay wax ka hagaagsan yihiin for example jacketka aan wato waxa uu ka hagaagsan yahay waxaan dhahayaa waa material okay material ama I bought a red material for her dress I bought red material for my dress waxaan soo gatay material guduud ah si aan dharka uga hagagsado material qaabkaas loo isticmaalaa merit waa tayo yani qofkaad aqoontiisa tayadiisa wanaagiisa kuwaas ayaa la yiraahdaa merit the idea ama for example her hard work is full of merit dadaalkeedu waxa ka buuxo yani tayo fara badan good quality ama qiimo fara badan baa ka buuxo maalmahan aad baa loo isticmaalaa yani aynu isku shaqaaleysiino through to meritocracy sorry yani isku yani shaqaaleysiin nepotism favorism iyo qabyaalada waxyaalahaas marka meritocracy hal isku shaqaaleysiin hadii la yiraahdo yani qof walba tayadiisa iyo maaragtay qiimihiisa wax uu yaqaan hal la weydiiyo marka merit waa tayo qiimo labaantood erayga toddobaad mild waa dhexdhexaad mild waxaa la yiraahdaa dhexdhexaad for example he gave her a mild answer su'aal wuxuu siiyay aanan dhinacaas yani aadna zaid u hayn aadna u yareyn dhexdhexaad mild yes for example I'm feeling mild pain waxaan dareemaa xanuun dhexdhexaad zaid maahan yani waa iska dhexdhexaadun aadiyaad erayga saddexaad mind waa maskax brain iyadan waa maskax yes for example he has a sharp mind maskaxa wuxuu leeyahay tough ah haddii kale please yes mind waa maskaxun aadiyaad erayga sagaalaad mingle waa isdhexgelid inaad dadka isdhexgalaan ay maxay ahayd to socialization sameeyaan ayaa waxaa la yiraahdaa mingle for example guests started to mingle at the party yani martidii waxay bilaabeen inay isdhexgal sameeyaan waa xafladda dhexdeeda yes she doesn't like to mingle with strangers ma jeclo inay dhex gasho dadka aysan aqoonin ama inay ku darsanto ee la socialize gareeyso dadka aysan garanayn erayga tobnaad ee ugu dambeeyo mode waa qaabka aad wax u sameynayso waa sida method oo camal method hadii lagu this is my method qaabkan anigu wax u sameeyaa waa this is my mode qaabkan baa wax u sameeyaa for example we need a new mode of teaching we need a new method of teaching waxaan u baahanahay qaab cusub oo aan dadka wax bari karno ashriga intaas ayuu ku eegyahay thank you for listening god bless you